بسم الله الرحمن الرحيم. waxaad kusoo dhawaataan cashirkeenii computer hardware. waxaad hore usoo aragteen wax la yiraahdo computer sidoo kale computer software. cashirkeeni maantana wuxuu ku saabsanaan doonaa wax la yiraahdo computer hardware. computer hardware markaan ka hadlayno waxa ka hadlaynaa waxay tahay physical partska oo ka kooban yahay computerka ama deviceska la xiriiro. computerka wuxuu leeyahay physical oo wax la taaban karo oo computerka wuxuu ka koobnaan karaa markaan ka hadlayno physicalkiisa mid gudaha ku jiro sidoo kale wuxuu noqon karaa mid banaanka ka imaanayo devices kale oo banaanka loogu soo xirayo. intaba waa arki doonaa wuxuu yahay. markaan ka hadlayno internal deviceska waxa ka hadlaynaa waxay tahay motherboard, sidoo kale waxa ka hadlaynaa hard drive-ka, sidoo kale waxa ka hadlaynaa RAM. sidoo kale waxa jira wax la yiraahdo external hardware devices. waxay kala yihiin monitorski, waxa kamid ah keyboardska, sidoo kale mice ama mouse-ka, speakers, microphone and sidoo kale webcam. markaan ka hadlayno internal hardware-ka waxa ugu horeeyo waxa waaye waa motherboard. motherboard-ka markaan ka hadlayno waxa waaye waa plastic sheet ayaa lahaa, waa meesha isku wada imaanaya ama dhammaan waxa imaanaya meeshan wax la yiraahdo RAM-kii boosku fadhiisan lahaa, sidoo kale waxa imaanaya connectorskii oo meeshii laga soo gelin lahaayeen VGA-gii oo markaan ka hadlayno waa input output-ka VGA-gii, sidoo kale samaacadaha meeshii kaga soo xirmi lahaayeen, sidoo kale meeshan waxa imaanayo wax la yiraahdo CPU-gii waayana meeshii waa saaran yahay. intaba waxay dul saaran yihiin meel la yiraahdo motherboard, waana dhammaantoodana waxa waaye waa internal device, waxay ku jiraan gudaha computerka ayay kaga jiraan. sidoo kale waxaa jira wax la yiraahdo hard drive. hard drive-ka waxa waaye waa meesha aad ku keydsanaysid xogtaada. hard drive-kana sidan ayuu u yaalaa. sidoo kale waxaa jiro internal hardware kale oo asigana aad u muhiim ah, waa kan random access memory. qaabku u yaalana ama sawirkiisa markii aan ka hadlayna RAM-kana sidan ayuu noqdaa. RAM-kan wuxuu noqon karaa mid ka kooban 4GB ayuu noqon karaa 8GB and so on. sidoo kale markaan ka hadlayno computer hardware waxaa jiro qayb la yiraahdo external hardware. externalka waxaa ka mid ah monitors ama screenska oo computerska laptopska loo isticmaalo. monitorka lagu sheegayo waa kana waana desktop computer. sidoo kale waxaa jiro externalka waxaa ka mid ah waa keyboardka. dhammaantood waxay kaga soo xirmayaan banaanka ayuu kaga soo xirmayaan markii laga hadlayo computerka. wuxuu wataa fiilada USB-ga ayuu wataa, wuxuuna kaga xirmaa waxay tahay boortiga USB-ga oo computerka ka leeyahay. sidoo kale waxaa jiro another external hardware oo ah mice ama mouse-ka. sawirkiisana waa kana asigana waa external, dibadda ayuu kaga soo xirmayaa. sidoo kale waxaa jiro speakers, samaacadahaas ayagana waxay kaga soo xirmayaan banaanka ayay kaga soo xirmayaan oo waxay isticmaali doonaan USB ayagana isticmaali doonaan, ayagana waa external hardware. sidoo kale external hardware-ka waxaa ka mid ah microphone-ka aan ku hadalno oo aan codka ku duubano. microphone-ka sidan ayuu yaalaa. waa kala duwanaan karnaa, microphoneska way kala duwan yihiin, laakiin microphone-ka sidoo kale dibadda ayuu kaga soo xirmaa markii aan ka hadlayno external hardware. sidoo kale waxaa jirto webcam ama kamerada idin waxay kaga soo xirantaa xagga iyo banaankaas iyadoo loo isticmaalayo USB. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.